السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكن حريد حسن حسين وتقانا حوك سده برتن إن كلا الله يانا وحوك سده حماديد وفشيال إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. واحد تحنا إنه صوها برامج لما قاعد بحي بدبادة قيسك كارهان موضوعنا ما أنت وحى وكسب سنة هي كالنتا هوية دورك يا مارينتا أي كل هاي هوية جوريجا ويكقط لير تهاي إن بدن يا إن بدن مدة أباها مركل نعديجو تن هوية وحى يكون كان سا gudaha haddii uu aabuhu gacanta ku dhiga ama si fiican uga soo baxa hawlihii dibadda hooyaduna waxay si wanaagsan u qabanaysaa arrimihii gudaha sidaan isla ognahayba qoysku waa boqortooyo ama dawlad dhisan dawlad kastaana sidaad ogtihiinba wasiiradeeda waxaa ugu xog badan wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka arrimaha gudaha aabuhu marka waa inuu kaalintiisa u gutaa si fiican uga soo baxa kaalinta maaragtay wasiirka arrimaha dibadda si hooyadana ay u xaqiijiso oo maarta ay gacan ugu dhigto arrimaha gudaha lianna waa wasiirkii arrimaha gudaha qiimaha uu leeyahay doorka hooyadu xaqiiqatan ma ahan wax aan ku soo koobi karo ma garanaysaa ma ahan wax aan ku soo koobi karo muuqaalkan kaliya waxa weeyaan waa in badan kumanaan kun oo muuqaal ayaa laga sameyn karaa doorka hooyadu ay ku leedahay bulshada badankood hooyooyinka Soomaaliyeed doorkoodii intay ka soo baxeen ayay waxay ku darsadeen doorka aabihii oo maaragtay hawsha aabihii u taalay ayay badankood gacanta ku hayaan hooyo kastaana waxa weeyaan way ku haminaysaa arrinka ayada ah haddii aysan gaarin haddii ay gaarteen waxa way ka soo baxday oo maaragtay waxay qabatay meeshii ugu habooneed ee maaragtay aabuhu u qaban lahaa inay ayadu qabatay intii taadi ka soo baxday hadalkaas markaa leeyahay macnaheedu ma ahan hooyo kasta inay tahay midda aan ka hadlaayo way jiraan wayna badan yihiin hooyooyin badan oo ka soo bixi waayay kaalintoodii hooyanimo way jiraan hooyooyin badan ee maaragtay noloshii ku fashilmay way jiraan hooyooyin badan ee maaragtay ubadkooda tarbiyadooda ku fashilmay way jiraan hooyooyin badan oo ma garanaysaa intuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala nin wanaagsan ku aadiyay haddana maaragtay say u dhaqan lahayd ninka ay u xaqsan lahayd maaragtay u suurtagal weyday kadibna gurigeedii burbur u horseeday ilmaheedii iyo ninkeedina midba meel uu ka dhacay laakiin maanta waxaan ka hadlaynaa ayaa waxay tahay hooyada wanaagsan ee kaalinteeda inta ka soo baxday midda kalena ku dartay hooyo kastoo Soomaaliyeedna waxaan u rajaynayaa insha Allah biidnillaahi tabaaraka wa tacaala inay noqon doonto mid kaalinteeda inta ka soo baxday kaalintii aabihiina maaragtay inay qabato diyaar u ah ama soo qabatayba waxaa kaloo halkan aan fariin uga dirayaa hooyo kasta ee nolosha ku fashilantay hooyo kasta ee gurigeeda dhaqan weyday hooyo kasta ilmaheeda maanta ay dayacan yihiin hooyo kasta oo nin wanaagsan intuu Ilaahay siiyay haddana maaragtay garan weyday sidii u dhaqan lahayd hooyo kasta maanta ka qoomeynayso nolosheeda quruxda banayd ayada gacanteeda ay ku burburisay inay dib u soo kabato haddii uu muuqaalkan soo gaaro dibna ay u hanato haddii Ilaahay raali ka noqdo ilmaheedii iyo aabahoodba waxaa si la soo koobi karin hooyooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dariiqa toosan Ilaahay uu ku hideeyay in badan maaragtay waajibaadkooda ka soo baxay tarbiyada awlaadooda ka dhigay mid sareeya dhaqanka ninkoodana ka dhigay mid wanaagsan bulshada la dhaqankoodana ka dhigay mid maaragtay heer sare ah hadii jeerna diyaar u ah inay ma garanaysaa wax walba oo ka dhimanna ay kabato sidaan isla ognahayba hooyada waajibaadka laga rabo waa in yar oo kooban laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed intii yar oo koobnayd kuma ekaadaan xaqiiqatan hooyadu waxa laga rabaa inay ilmaheeda daryeesho nadaafadooda ay ka fikirto cunto siintooda iyo tarbiyadooda inta maartay kaga soo aado gurigeeda iyo ninkeedana ay ku barbaariso ay ku dhaqaalaysato si wanaagsan ee qurux badan laakiin hooyooyinka Soomaaliyeed inta ayada ah intay ka gudbeen badankood ayay waxay maaragtay soo qabteen arrimihii dibadda oo tii aabaha looga baahnaa inay iskuulkooda bixiso dhakhtarkooda geyso u labisto oo maaragtay wixii ku labisan lahaayeen ayadoo ay keento cuntadooda iyo biilkooda ayadoo ay meel saarto way haddana maaragtay u sii haminayso inay u sii tabaacdo dhul beero iyo ma garanaysaa guryo iyo hantida maguuraanka sidaan isla ognahay hooyada wanaagsan ma ahan wax halkan lagu soo koobi karo sheegsheegeeda iyo ammaanteeda sidaan isla ognahay hooyadu waxay maaragtay kartaa ay awood u leedahay wax badan ee aabaha uusan karin hooyadu markii ay dhasho cunugeeda xanuunkii ay maaragtay cunugaas fooshiisa ay maaragtay la soo martay xaqiiqatan waxay ku hilmaamaysaa markii uu madaxa uu soo dhaafay banaanka uu soo maray ooyo intaas ayay ku hilmaamaysaa xanuunkiisii ayadoo xanuunkaas ku sugan nabar xudumeedku uu hayo dhiigeeda uu harwaamayo ayay waxay ka fakaraysaa intaas yarta uu ooyayo inaysan maaragtay ku sii raagin oo hadba maritaa oo isla markiiba ay ku soo boodaa misna ay naaska af u gelisaa
oohintaas uu ooyay asagoo 24 saac aan gaarin ayay waxay dareemi kartaa baahi kasta ee maaragtay uu tabanayo ayay dareemi kartaa oo la socon kartaa laakiin aabuhu hal saac ay continue inuu cunug umul ku jira ama ooyayo ma hayn karo mana ogaan karo sababta uu cunugaas ooyayo laakiin hooyadu waxay awood u leedahay oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu karsiiyay 24 saac inay fadhido ama asoo xanuunsan misana seexan waayay inay dul fadhido oo ku dul maartay hurdooto ama aysan hurdo qabanin ee maartay xanuunka uu dareemayo ama soo jeedkiyo oohintiisa ay maartay ku hilmaanto wax walba ay ku Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u rajeynayaa hooyo kasta ee wanaagsan ee ilmaheeda jecel ee inay barbaariso maartay diyaar u ah misana soo barbaariso inuu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala irsaaqadeeda uu ka dhigo jannatul firdaws hooyo kasta maartay inta ayada ka soo bixi weydana waxaan maartay u rajeynayaa insha Allah bidnaahi tabaaraka wa ta'aala inay maartay dib u soo rujuuci doonto oo wixii hore oo lumay ay dib u soo haleeli doonto fadlan daawado hadda tahay mid nagu cusub insha Allah waxaan rajeynayaa inaad nagu soo beeri doonto si channelkan maartay wax badan ee ka maqnaad oo kororsato adigna aad nagu soo siyaadiso maartay nagu soo kordhiso wixii maartay anaga naga maqan waxaan si xushmad leh kaga codsanaynaa insha Allah inaad maartay nagu soo beertaan subscribe like and share intaba maartay inaad nagu caawisaan wixii fikrado noo haystaan aad comment-ka nagu wadaagtaan haddii aad naga daawanayso Facebook linkiga waxaan soo dhigi doonaa qaybta kore ee ku xusan yahay title-ka muuqaalkeenina maanta intaas ayaan ku soo koobaynaa insha Allah bidnaahi tabaaraka wa ta'aala intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tagayaa wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh